laakiin caawa waxaan rabaa waxa ugu horeeya oo aan dadka ku adkaynayo waxay tahay cabsida iska dhaaf. cabsida iska dhaaf waxaa khaladka ah nolosha bini aadamka ku khaladka ah maxaan ku raadaaye aakhirada muslimiinta ku khaladka ah sharafta iyo karaamada walaqad karamnaa bani aadam. ilaahay ayaa yidhi bini aadamka oo muslim iyo gaal uuna kala saari ayuu yidhi waa karaameey. karaamadaas ilaahay qofka uu karaameeyey mid kale oo asna ilaahay oo abuuro khalqi ah inuu inta soo istaago oo karaamadaas inuu dadka ka qaado oo isku dayo inaan aqbalna ma aha. aamina gabadhayday ahayd aada iyo aad ayaa waxay ahayd iyo qofkay ahayd loo sheegay. gabdho badan iyo wiilal badan ayaa macallin usoo ahaa ama maamulo usoo ahaa ama madaxweyne usoo ahaa sida aaminaba aan u ahaa. hase yeeshee in yar oo ka mida ayay aamino ka mid ahayd oo aan aada iyo aada igu qiimo dheeraa welina inta noolna ay igu qiimo dheer yihiin. sababtana ay uga duwan yihiin kuwo kaloo badanoo ama macallin usoo ahaa jiray ama maamulo aan usoo ahaa ama madaxweyne aan usoo ahaana waxay ahayd aamina waxaan ka midaysnayd qiyamka yani ay aaminsaneyd iyo kan aan aaminsanahay ayaa isku soo dhacay. wadadeedu halkaas isaga soo dhacaysay. waxa ay u taagneyd iyo qofka ay ahayd waa wixii ay meeshaan ka hadashay. waxa ay ka hadlayseen waad arkayseen idaacaday ahayd guryo dhexdood iyo maxaan ku rahdaa meelo yaryar oo dad yaryar jooga ma ahayn. telefishinka shabeelle, telefishinka goobjoog, telefishinka waa arkayseen iyo kuwo kaloo badan. intaani waa in yar intii ay aamina muxuu ahaay ay tiri. waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan aamino waa u ducaynay waana u ducayn doonaa haddii alla yiraahdo, laakiin hal mid inaan ugu abaalgudno wixii ay aaminsanayd wixii ay u taagnayd inaan aaminna aan u taagnaano. dhiiranaanteediina inaan qaadano oo aan dhiiranno. cabsidu wax badan nooma tarto. cabsidu waa na soo xirtaa, caqligeennay soo xirtaa, cibaadadeennay soo xirtaa, dadnimadeennay soo xirtaa, dhinac walbay soo xirtaa. haddana inta caawada muxuu culimmadii muxuu meeshaan ka hadashay oo dhan khayr allah siiye iyo inteena caqiidada islaamka aaminsanba waxaan aaminsanahay qofka maalintii iyo daqiiqadda uu dhimo lahaa sida ilaahay buu u cadiyay inaan daqiiqadna na soo hormarinayn daqiiqadna aan la dabamarinayn. marka maalintaad dhimo lahayd haddii aad dhimanayso oo aadan muxuu ahaay darbiye adag isku wareeji ama muxuu ahay meelgal aanad ku badbaadayno saacaddaada ay saacada ku darsoonay waxa aakhirada aad aadaysa ee markaad dhimato meesha aad tegaysa kaa anfacayo samee. cibaadada shaksiga ah ee qofka muxuu muslimka laga rabo ka sokow ummadda midaad u samaysaa macno badan samaynayso. qofka muslimkaa waxau sameeyay maxaa la yidhi ugu fiican qofka xaakim jaa-ira hortiis inta istaaga yirahdo waxaad samaynaysa khalad waay. aaminana waxay ku sifaysnayd intaasay ahayd. soomaaliyeed walaalaheeyo wax badan aan u baahanaa inaan ka tanasulno iska dhaafno, laakiin caawa waxaan rabaa waxa ugu horeeya oo aan dadka ku adkaynayo waxay tahay cabsida iska dhaaf. cabsida iska dhaaf waxaa khaladka ah nolosha bini aadamka ku khaladka ah maxaan ku raadaaye aakhirada muslimiinta ku khaladka ah sharafta iyo karaamada walaqad karamnaa bani aadam. ilaahay ayaa yidhi bini aadamka oo muslim iyo gaal uuna kala saari ayuu yidhi waa karaameey. karaamadaas ilaahay qofka uu karaameeyey mid kale oo asna ilaahay oo abuuro khalqi ah inuu inta soo istaago oo karaamadaas inuu dadka ka qaado oo isku dayo inaan aqbalna ma aha. qofku wax waa ku qaldami karaa, waana loo sheegi karaa, waana ka soo noqon karaa. laakiin mugo wax inta ku qaldamo oo kuwo u sacbiyo oo yeesho oo kuwo maxaan ku radaa u qoslo oo yeesho oo kuwo waxaas uu sameeyo uga sii daysado ayaguna sii sameeyo oo sii yeesho waa dunuubtii waa dembigii oo dembi lagu daro dembi kale lagu sii daro mid kale lagu sii saddex jibaar. aan dhiirano xaqa aan ku dhiirano waxasan aan ku dhiirano cibaado ayadaas ugu horeyso
waxaan ka hadalnaa dadka siyaasiyiinta haddaanahay waxay tahay mustaqbalka ummad dhan oo jirta ayaan ka hadalnaa sayidina cumar radi allahu canhu soo maahayn mas-uuliyadda qofka mas-uulka oo mas-uuliyad xambaara markuu ka hadlaya faraska ku kufaa muxuu ahaa ciraaq waxaan ka baqayaa in ilaahay aakhiro weydiiyo maxaa waddo ugu sameey waayso uu kufay haddee inta ka soo harto qof bini aadana iyo noloshiisa iyo mustaqbalkiisa iyo karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo diintiisa ka waran yaanan ka gabanin yaanan ka cararin yaanan qofna anagoo ku dulminayna aan dhihina anagoo ilaahay ugu dhawaanayno oo maslaxadda ummadda ugu dhawaanayno oo danta ummadda ugu dhawaanayno aan sheegno waxa saxda ah aan diidno waxa khaldan kan wax qaldayaa kuma dhiiranayo markuu arko dadku inay diidayaan kuma dhiiranayo markuu arko qofaf soo taagan oo maya dhahayo oo aan baqin lagu arko laakiin markuu inta khaldamo kuwa qalbiga ducafada ka ah oo diinka daciifka ka ah oo garashada daciifka ka ah ay ku taageeraan qofka iska gabado iska aamusa asaa dadka ugu daciifsan ilaahay idinkiisa dii alla yiraahdo wixii ducaa horaa loo yiri in badanna aamin waa usoo ducaynay maantay dhimatay ilaa maanta haddana waa usoo ducayn doonaa haddii alla yiraahdo in badan oo kale waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan uga tacsiyeeyo gaar ahaan maamulkii ay ka tirsaneen hirshabelle oo madaxweynuhu ugu horeeya inaan uga tacsiyeyno ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo intii maalin aamino lasoo macaamishay oo aan ku kalsoon hubo inay jeclaadeen aamino oo ay macaamilkeeda iyo suluugeeda iyo akhlaaqdeeda ay ku jeclaadeen inaan uga tacsiyaan rabaa aniga gabadhayda ahayd si gaara ayay macno iigu lahayd waxaana macno iigu lahayd waxa ay aaminsaneed iyo qofnimadeeda waxa ay aaminsaneed waxa ay ku hadaaqi jirtay waxa ay u taagneed intaas waa intaan runtii aan mar walba aan ku xasuusto oo aanan marna aanan qalbigeyga ka go-ayn qof toosan ilaa waxbarashada ilaa masters degree ka gaartay oo la sheegay diintana iyadaaba is sheegtayba waxa ay aqoonteeda diinta meesha ay gaarsiisan tahay wadaadka sheekh maxamed muuse halkan yimidna waa kii sheegay macalinkeeda ahaa haddee qof intaa isu darsatay siyaasaddiina soo gashay maantana u taagnayd aamina inay inta soo qaadato kursiga ay inta timaado ay ku shaxaatanto uma doonanaynin ra-iisul wasaarihi halkan joogay oo inta ka sheegay dalka ra-isul wasaare kasoo aanan madaxweyne 4 sano soo ahaa dad ayadoo wax u raadinaysa waa kusoo geli qof ayadoo qofkan waa la dulmiyey darajo lahayaa laga reebay sarkaalkan ama muxuu ahaay waxaanu mudnaayo uu waayey ama dhibaatadana meel hebel ka jirta ama qofkana dhibaataysan xitaa shaksi dhibaataysan oo ama deemaysan ama hadday soo aragta xataa qofkana waa deemaysan waa saani maxaa loo qaban karaa war hebel qof teleefon u dir u wac hebel muxuu ahaa mushkiladaas xal saasay ahayd kuwii ku daysado oo wixii sameey jirtay sameeyay allah naga dhigo kuwii waxay u taagnaadana allah naga dhigo aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu